magaalada dhuusamareeb waxaa weli ka socda shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk Soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir wararkii ugu dambeeyay ee aan caawa ka helayno shirkaasi waxay sheegayaan in weli ay jiraan qodobo qaar oo ay isku mari la'yihiin dhinacyada uu shirka u dhexeeyo arrinta laisku hayo ee weli laisku mari la'yahay waxaa ka mid ah guddiga doorashada heer federaal oo ay sheegeen dhinacyada halkaasi ku shiraya iyo musharaxiinta mucaaradka inay ku jiraan xubno ka tirsan nisa iyo shaqaalo dowladeed horey waxaa go'aan looga gaaray arrinta gobolka Gedo oo ahayd xiisadda ugu weyneed ee hortaagnayd doorashada waxaana arrinta gobolka Gedo loo xil saaray madaxweynayaasha Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Hirshabeelle inay xal ka keenaan arrintaasi waxaana weli dhuusamareeb ka socda kulamada u dhexeeya madaxda halkaasi ku shirsan dhinaca kale beesha caalamka ayaa war ay soo saareen waxay ku soo dhoweeyeen shirkaasi ka socda dhuusamareeb iyagoona sheegay in muhiim ay tahay in xal laga gaaro khilaafka ka taagan doorashada islamarkaana madaxdu ay muujiyaan isu tanaasul iyo sidoo kale inay ka shaqeeyaan danta qaranka dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ka digay muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Maxamed Ibraahim madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kana mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu si kulul uga hadlay marxaladda siyaasadeed ee xilligan uu dalka mariyo iyo arrimaha doorashooyinka madaxweyne Shariif ayaa walaac xooggan ka muujiyay in weli aan heshiis laga gaarin arrimaha doorashooyinka isla markaana waxa uu sheegay inuu dhamaaday waqtiga dowladda loo aasteeyay sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in midowga musharaxiinta madaxweynaha gudoomiyaha aqalka sare iyo ururada bulshada rayidka ay muhiim ahayd in ka qayb galaan shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee haatan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulada dalka ka jira uga soconayo magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud murashaxiinta waxay aad iyo aad uga xun yihiin in waqtigii dowladda loo aasteeyay oo dhamaaday iyadoon doorasho dhicin laguna heshin xilligan waxay ahaaday madaxweynaha doorashadiisa kale inay dhimanta ama ugu yaraan heshiis lagu yahay habka doorashada iyo waqtiga madasha midowga murashaxiinta maadaama ay yihiin dad xilal waaweyn dalkan ka soo qabtay haddana u taagan xilka madaxnimada inay qayb ka ahaadaan wada tashiga xalinta khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in dad badan oo kale saamilay ah oo ay ahayd inay ka qayb galaan aan laga qayb galin oo ama ay ka mid yihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka uu mithlo iyo dadka uu mithlo iyo ururada bulshada iyo dadka loo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka qodobka afraad haddii uu dhamaaday muddo xileedkii dowladda baarlamaanka oo soo dhamaaday madaxweynaha xilkiisuna wuxuu ku egyahay 8 February oo saacada ay naga xigaan marka maadaama ay dhamaaday waqtigii loo idmaday dowladda wax walba oo tilaabo ah oo loo qaadayo hanaanka doorashooyinka waa inay ku beesgareysnaadaan heshiis siyaasadeed oo ka turjumaya rabitaanka dadka Soomaaliyeed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa mar la weydiiyay haddii la gaaro 8 Febraayo waxa ay sameynayaan musharaxiinta waxa uu ku jawaabay inaan bilaawno wada tashiga bulshada waana soconaya oo baahanaya gobol Soomaaliyeed oo Soomaalida isugu timaado ka tashato doorashada iyo sida loo qaban karo anaga hadda waxaan wada bilaawnay wada hadaladii qaybaha bulshada odayaashii maanta la kulanay waan wadi doonaa inaan talada aruurino sidii mataqaana tala toosan oo loo midaysan yahay oo keeni karta in hore loo socdo ay u imanayaan inaysan aqbalaynin muddo kororsi wax khilaaf kasta la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada ogol inkasta weli xal rasmi ah aan laga gaarin hanaanka doorashooyinka Soomaaliya haddana warar soo baxaya ayaa sheegaya in qodobada qaar ay madaxda isku fahmeen welina waxa socda kulamada intaan ka bixin wararka shirka Dhuusamareeb la xiriira ururada bulshada rayidka ayaa ugu baaqay madaxda ku shirsan magaalada Dhuusamareeb in aysan soo laaban iyaga oo xal ka gaarin muranka doorashada Cabdisataar Xaaji Cali ayaa faahfaahinaya warkan ururada bulshada rayidka ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo weli ku shirsan caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb in mar labaad aysan ku fashilmin in isfahan ay ka gaaraan hirgelinta arrimaha doorashooyinka ururada bulshada rayidka ayaa sidoo kale qoraalkooda ku sheegay in loo baahan yahay in shirka watashiga Dhuusamareeb aan loo kala kicin ilaa lagu heshiiyo iyagoo sheegay inay muhiim tahay in dhinacyada shirkaasi ka qayb galaya ay soo saaraan jadwal doorasho oo shaqaynaya waa kan gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka Ismaa Muxiidiin Shaatax oo akhriyay war-saxaafadeedka ay soo saareen ururada bulshada rayidka waxayna ugu baaqeen mas'uuliyiinta in aysan mar labaad ku fashilmin in isfaham
ay ka gaari waayaan hirgelinta heshiiskii 17 September 2020 la saxay magaalada Muqdisho. waxaan ogsoonahay in shirka dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo shirkii Muqdisho ay hogaamiyaasha talada isugu koobay iyaga kaliya iyadoo dalku ku jiro marxalad adag isla markaana aysan fursad siin dadka talada wax ku lahaa si la mid ahna kan hadda socdo ay isku koobeen iyaga oo kaliya. waxa ayna walwal ka muujiyeen in iyadoo ay dhamaanayaan muddaxileedka hay'adaha dawladda dastuuriga ay dhalan karto dhibaato deganaansho la'aan siyaasadeed sii socosho dhibaatooyinka bini'aadanimo iyo niyad jab weyn ku yimaado dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda kuwaas oo ku jira dadaalka dib u dhiska dalka. sidaas darteed in shirka aan loo kala kicin ilaa la isku fahmo in shirka heshiis dhab ah laga gaaro fulinta heshiiskii 17 September ee la saxay waxaana laga maarmaan ah in shirka la ballaariyo si uu noqdo mid miradhalkiisu xoogeysto in jadwal doorasho waqtigeesan uu ka soo baxo shirka maanta shirka ugu socdo Soomaaliya madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir in guddiga xalinta khilaafaadka loo daayo go'aan gaarista waxyaabaha la isku qabsado ee la xiriira doorashooyinka xubnihiisana lagu daro xubno khubaro ah kana yimaada bulshada sida culimada ganacsatada aqoon-yahanka iyo neergaradka kale in la qabto shir ballaaran oo looga arinsanayo sida looga gudbayo marxaladaha kala guurka iyo siyaalaha wax looga qabanayo xaaladaha aadamnimo iyo kuwa amni xumo ee ka taagan dalka lagana fogaado wax kasta oo xaaladahaas ugu sii dari kara ama aan farxad gelinin dadka Soomaaliyeed. kulanka maanta xubnaha ururada bulshada rayidka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa imaanaya xilli weli magaalada Dhuusamareeb ay ku shirsan yihiin madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada kuwaas oo ka shiraya caqabadaha hortaagan hirgelinta doorashooyinka. General Xuud ayaa faahfaahin ka bixiyay isku dhac maanta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ku dhex maray ciidankiisa iyo ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya. General Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa ka hadlay dagaal saaka magaalada Beledweyne ku dhex maray ciidamada militariga Soomaaliya iyo maleeshiyad uu hogaamiyo. Xuud oo wareysi siiyay Keenan ayaa ku eedeeyay laamaha ammaanka magaalada Beledweyne inay xireen dad shacab ah taasna ay keentay sida uu sheegay weerarkii saaka ay ku qaadeen ciidamada dawladda. isaga oo sii hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay in si sharci darro ah ay ku xiran yihiin dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira san u dulqaadan doonin. dagaalka saaka dhacay anaga wax kasaaya ah oo la soo gaaray haba yaraatee dhaawac iyo dhimasho midna maahin. dadka shacabkaana wax soo gaaray male intaan arkay aanu ku leeyahay wax kale ma samayn anaga saaka magaaladan tagnay ujeedada aanu tagnay waxay ahayd dad anaga naga inaan soo fiirino dadkeeda xirxiray kadibna dagaalan naga horreeyay iyo haramas intaasaa dhacday waxaan islahaa ku gaado ayagoo jirjiifo dadkaaga intaas soo saran taga soo noq ayagoo soo jeeda haddaan soo aado adboo ogtaa wada ka dhacay Hirshabelle. marka mar haddaaba og tahay inay dagaal dhacayo oo dad dhiman karaan dad dhaawacmi karaan maxaa kugu qasbaya adigoo nin mas'uula oo og xaaladda iyo duruufaha Hiiraan ka jira inaad adigu hubaysan aroor hore si dhuumaaleysiya aad damacdina magaalo ku gasho? maxaa ayaga ku qasbay inay gabdhaha uur kalena ay xirxiraan oo xabsiga ku dhex dhalaan? maxaa ku kalisay walaalo dadka laayaan loo haraadayo oo shacabka ah oo waxba u dhimin oo dadkoodii ah oo dadka canshuurtooda ay cunaan ah ama mishaarka lagu qaato? gabdhaha anigu waxaan u ahay walaalkoodaan ahay adeerkoodaan ahay aabbahoodaan ahay gogol fiican iyo guur fiican iyo nasabnimo iyo sharaf aan rabaa iyo magacooda kor ahaada. 4 qof oo isugu jira rag iyo dumar ayay maalmo ka hor ay xireen laamaha ammaanka kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay abaabulayeen falalidi ku ah nabadgelyada magaalada xarunta u ah gobolka Hiiraan ee Beledweyne. taas ayaana sababtay in Beledweyne dhowr mar uu ka dhaco banaanbax lagu dalbanayo sii deynta dadka xiran. taliska militariga qaybta 27aad ayaa sheegay inay ku daba jiraan General Xuud iyo maleeshiyadiisa ee weeraray magaalada Beledweyne sharcigana la horkeeni doono goortii gacanta lagu dhigo sida ay sheegeen. wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug ayaa ku amray laamaha ammaanka maamulkaasi in tallaabo cad ay ka qaadaan ciddii joojin weysa dagaalka ka socda deegaanka Xanan Buure. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya. waxaa soconaya waan lagu xalinayo dagaalka maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galgaduud kadib markii beelo walaalaha ay dagaalameen. dagaalkan ayaa dad badan ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaana taagan xiisada arrintaasi. xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka iyo wasiir ka socday maamulka Galmudug waxa ay wadaan dadaalo lagu kala qaadayo
maleeshiyaadka dagaalamaya islamarkaana amaro ka dhan ah beelihii dagaalamay soo saaray. wasiirka arrimaha gudaha maamulka Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel maruu la hadlay warbaahinta wuxuu amar ku bixiyay in la kala qaado maleeshiyaadka dagaalamay cidii ka dhaga adeegtana ee tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. in la joojiyo dagaalka ka socda muddo ka socday Xanan Buuro annagoo matalayna xukuumadda Galmudug waxaan codsanaynaa in degdeg loo joojiyo dagaalkaas oo muddo meesha ka jiray khilaafkiisuna muddo soo jiitamay 7 bilood 8 bilood arintaas ay soo jiitamaysay. waxaan codsanaynaa dadka kala duwan oo dagaalka ku jira inay xabadda joojiyaan wada hadal ku soo dhawaadaan ay ogolaadaan in xaajada tan wada hadal lagu dhameystiro ciidankana iyo maleeshiyaadkana ay kala geeyaan meelihii ay markii hore ka yimaadeen. sidoo kale waxaan ciidamada amniga ka codsanaynaa iyo wasiirka amnigaba in arinta laga howlgalo si degdeg ah. shalana madaxweynaha dawladda federaalka amar buu arinta ka bixiyay waxaana soo gaarsiiyay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka oo nala jiray. waxaan codsanaynaa marka hay'adaha amnigu inay shaqada uga aadan arinta ka qabsadaan inay maleeshiyaadkaas deegaamadii ay ka kala yimaadeen la kala geeyo in amniga la xoojiyo in culimada iyo waxgaradka iyo salaadiintu ay u istaagaan arintaas joojinteeda ka bacdina arintaas wada hadal laga galo. arintaasaan codsanaynaa oo soo jeedinaynaa ciidamada amniga waxaan ku adkaynaynaa ciddii ka dhaga adeegta joojinta xabadda iyo soo jeedinta dawladda inay iyagu markaa hawshooda ay ka qabsadaan. waxaa mar hore fashilmay qaboojintii kala qaadida maleeshiyaadka ku dagaalamaya deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galgaduud kaasoo ay wadeen odayaasha dhaqanka ee ku nool gobolkaas. waxaa geesta kala barbar socday barakac ay sameynayeen dadka deegaanka ee dushooda lagu dagaalamay maadaama dadka qaar ay khasaaro soo gaareen. maamulka isbitaalka Banaadir ayaa ku guuleystay in ay qalin ku sameeyaan haweeney muddo 5 sano ah ku jiray caloosheeda cunug meyd ah. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. maamulka isbitaalka Banaadir ayaa maanta soo bandhigay mid ka mid ah qaliinada ugu adag ay sameeyaan dhaqaatiirta Soomaalida. Muumina Aadan Yaasiin oo dhaqaatiirta ay qaliinka ku sameeyeen isla markaana ka timid gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Qoryooley ayaa waxa ay muddo 5 sano ah la xanuunsaneed ilmo meyd ah oo caloosheeda ku jiray. isbitaalka Banaadir marka ay timid ayaa u suurto gashay in dhaqaatiirta ay qalaan iyadoo ay dhaqaatiirta ay sheegeen in cunugaasi uu ku sameysmay banaanka hore ee minka isla markaana halkaasi ku jiray muddo 5 sano ah. Muumina Aadan Yaasiin ayaa ka warbixisay qaliinka ay dhaqaatiirta ku sameeyeen. cunuga ayuu jiray 5 sano ah Qoryooley dhowr xanuun iyo xanuun iyo aan dareemay. isbitaalka Banaadir ay horeey maasha Allah waa roonahay xanuun way caawiyeen way qaleen daawooyin ay siiyeen waa la caawiyay ayaalka ilmaha liiga soo saaray daawooyin ay siiyeen lacag la'aan way lacag may qaadan walaashiyo walaalihii waa maxadsiin. Dr. Khalid Sulaiman Qalib oo ka mid ah dhaqaatiirta soo bandhigay qaliinka lagu sameeyay hooyadan ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. bukaanku markuu yimiday computer baan saaray. computerka markaan saaray ama ultrasound wuxuu noo sheegay inuu yahay 3 weeks oo u dhiganta 8 bilood. marka ilmuhu wuxuu ku istaagay 8 bilood 4 sanana caloosha iyadoo 4 sano caloosha ku dhex jirayna wax dhibaato ah oo ay ku dareemayso culayska aan caadadeedu toos ugu yimaanaysa inkastoo waqtiyada qaar uu khalkhalaysay laakiin ilmuhu wuxuu ku istaagay markuu 8 bilood u marayay 4 sanana uu caloosha waxa ay ku dhacday waxa weeyaan horta ilmahani wuxuu ku abuurmay minka banaankiisa waxa badanka laga dhalaana waxa weeyaan waa ilmo galeenka dhex marka ilmahani wuxuu ku abuurmay banaanka. Fartuun Shariif Maxamed oo ah agaasimaha isbitaalka Banaadir ayaa iyadana warbaahinta la hadashay. maamo Muumino oo runtii ahayd hooyo ugub ah muddo 5 sano ka hor guursatay la nooleed xaalado xanuun dareemaysay muddo 5 sano ah maxay ahayd culays xagga caloosha ah markii ugu horeysay isbitaalka timid waxay la kulantay dhaqaatiirteena fadhiista bukaan socodka waxaa loo diray inay u baahan tahay ultrasound ama computer
waxaa ilaahay mahadiis ilaahay u waafajiyey inuu diagnosis saxa ka gaaro kayskan oo ah dhakhaatiirtiisay sheegeen calcified fetus oo ah inuu ku sameysmay ilmagaleenka banaankiisa ayna tahay dunida uu dhifi qaliil ku yahay Soomaaliyana keyskii saddexaad inta ogaalkay ah aan maqalnay oo runtii muumina oo ah hooyo Soomaaliyeed ka imaaday meel ka fog magaalada Muqdisho bukaanka Ilaahay noo caafiyo dhaqaatiirtana Ilaahay cilmigooda ha u barakeeyo. taasina waxay ahayd agaasimaha isbitaalka Banaadir waxayna u dambeysay warka wariyana Farxaan Maxamed Xuseen. degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa maanta la gaarsiiyey gargaarkii ugu horeeyey muddo sannada ah kadib. maxamed cabdixakiin xirsi ayaa faahfaahinaya. degmada diinsoor ee gobolka baay maanta waxaa la gaarsiiyey gargaarka ugu horeeyey kaas oo gaaraya 22 tan islamarkaana lagu qaaday 3 diyaaradood. diinsoor ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka muddada 10 sano ay go'doomiyeen ururka al-shabaab kadib markii cir iyo dhulba ay diideen in wax la marsiiyo. wasiirka xanaanada xoolaha ee xukuumadda Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo maanta gargaarkaani gaarsiiyey degmada diinsoor ayaa sheegay sida tan. laakiin 3 diyaaradood oo cunto ah oo 22 tan ah 400 qoys maartay cunto gaaraysa oo maxaa la yiraahdaa isugu jirta bur bariis sokor iyo saliid taasoo ay si wada jir ugu wada deeqeen madaxweynaha dawladda koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Maxamed Xasan Maxamed lafta gareen iyo anigoo ah Xuseen Maxamuud Xuseen wasiirka xanaanada xoolaha dawladda federaalka ayaan bal waxaan isniri intii laga hay'adaha kalena iyo howlahooda laga gaaray maadaama xaalad degdeg ay jirtay deegaanku ka jirtay inaan soo gaarsiinay saaka diyaaradii ugu horeysay waa la qaybiyey diyaaradda labaad waa tan cuntadeeda weli maartay meesha taasha ta saddexaadna waa hadda dhabarkayga ay taagan tahay marka ilaa 400 qoys muddo bil ah maartay iyo cunto ku filan ayaan soo gaarsiinay. waxaan halkan uga baaqayaa maanta iyadoo gudoomiyihii odayaashii salaadiintii dhan ay nala joogeen inaan halkan degmada diinsoor uga baaqayo hay'adaha caalamka iyo dawladda iyo cid walbaba inay la soo gaarto magaaladan kaalmo degdeg ah iyo maaragtay sidii dadka wax loogu qaban lahaa jidadka iyo waxa laguna furi lahaa. degmada waxay leedahay ciidan aad u xoog badan oo daraawiish ah ciidankaasoo runtii ciidan muddo 5 sano jiray oo qalabaysan oo koonfur galbeed ciidanka ah 350 ciidan ah oo hubaysan oo qalabkoodu u leeyahay oo dagaalo ilaa 60 kilomitir magaalada ku jira laakiin inta badan rasaas aan helin inta badan aysan ka mid ahayn ciidamada maartay sharciyeysan oo dawladda ay lacagta siiso marka dawladana waa gaarsiin doonaa. maalmihii dambe waxaa soconayay u gargaaridda dadka ku nool degmooyinka ay go'doomiyeen ururka al-shabaab kuwaas oo ka wada tirsan gobolka baay iyo bakool. arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii la arkay dad gaajo dartii u geeriyoonayay kadib markii ay waayeen wax baad ah oo ay cunaan. halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. markana wararkii dibadda. diblomaasi reer Iiraan ah ayaa lagu helay dembi ah inuu qorsheynayay inuu qarxiyo isu soo bax weyn oo ay qabteen koox mucaarada. asadullaahi asadi oo 49 sano jir ah kana soo shaqeeyay safaaradda Iiraan ee Vienna ayaa maxkamad ku taala dalka Belgium-ka waxay ku xukuntay 20 sano oo xabsi ah. xukuumadda Tehran ayaa waxay sheegtay in diblomaasigan uu dhibano u yahay reer galbeedka. waxay ahayd markii ugu horeysay ee sarkaal Iiraani ah uu wajaho eedeemo noocan oo kale ah oo ka socda midowga Yurub tan iyo kacaankii 1979kii. 3 kale ayaa iyagana la xukumay waxaana lagu soo qabtay howlgal ay iska kaashadeen booliiska dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Belgium-ka kuwaas oo in muddo ah ragani baadigoobayay. 10,000 oo qof ayaa ka soo qayb galay isu soo baxa dhacay Juun 2018kii waxaana ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska kuwaas oo dhigayay dibadbaxyo ka dhana taliska sare ee dalka Iiraan. waxaa dibadbaxayaashaasi ka mid ahaa qareenka madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. xukunka ayaa yimid toddobaadyo kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qabtay xafiiska iyadoo Iiraan ay rajeynaysay inuu ka laaban doono qaar ka mid ah cunaqabateyntii uu saaray madaxweynihii isaga ka horeeyey ee Trump.